السلام عليكم. maxaad u dareentaa inaadan ahayn sidaad iska doonaysay? maxaad markasta isu dareentaa inay wax weyn ka maqan yihiin, in wax weyn ay ku dhiman yihiin, inaad doonayso sidanaad haysi ka sii badan, waxaanad haysato wax ka sii badan, intaad heshay in ka sii badan, heer xataa mararka qaar waxyaabaad ku taamaysa inaad heshaa marka aad gaadhi aad ka dhabayso ay dhadhankeed ka filisay ku sameyn waayaan. hore ayaa looga hayay nin murtiile ah, markasta oo aan wax ogaado waxaan ogaaday inaan waxba ogeyn. kullama عرفت أنني لا أعرف، يعني مركز أو أقون إيه علمي وعصب عن برتو حقي وعصب عن هرو وهين عن هرو وحن دري ما إن إبرة حيوان وحبل تشوجن لأن شيء هاي نسكدر إننا وتبع فدرة بناء مكقيب كأ وعقلية دم إنجاب كأ السبال كأ أو كلية أي سؤالتين لما يسترنت هاي أي سؤالتين أنا وحبك مغنين أي سؤالك حتى ذاتك لا تليه إلى هذا اليوسين الكمون أكسنا إني هرو مركو ذا كحنيهين إن وحي هيستني كحنيهين إني إلى حييجيهين inay cayuuma naas kula wareegayaan. aqliyada saboolka oo kaliya ayay iska aaminteen inay perfect tahay, wax la wax ka maqanaanay jirin, inaad dareento wax ka maqani waa bini aadamnimo. laakiin taas laftarkeeda ayaa xad iyo xuduud leh, oo haddii xaddigeeda ay dhaafto lidigeeda isu bedelaysa. haddii wax kasta dhinaashay aad ka aragto koob kasta oo shaaha oo loogu soo shubo, inta xoorka ay dusha ka saaran ee marani ay ku muuqato, inta fijaanka shaaha ee caana geelaha ay ku jiray ku muuqan weydo, fadradii saxdahayd waad ka sii fogaanaysaa. waana sababta nabiga calayhi salaatu wasalaam uu lahaa haddii basharka la siiyo laba webi oo dahaba oo dareeraya mid saddexaad ayuu raadinayaa. ha gaadhin marxaladda noocaasa ee ka hortag intaanay naftaada kula gaadhin heer wax kasta intooda dhiman adeegto, mutashaa'imaad noqoto, dhanka taban wax walbaad iska taagto. inta aadan raadinin waxaa kaa maqan, horta ku qanac waxaad haysato, iyadoo marnaba aadan aaminaynin inaad tahay qof dhammaystiran. bahalka raabka la yidhaahdo wuxuu leeyahay saykoolojiyad iyo habdhac uu shaqeeyo, waxaana aasaasi u ah qofku inuu isfaaniyo, inuu perfect iska dhigo, in waxbaba inaan lagu gaadhin uu iska dhigo, in isagu mar walba uu lambar 1 ka istaago. haddaad u fiirsato dhammaan heesaha raabka ama sharmabay ha qaado ama cid kale ha qaado, mid kasta wuxuu sheeganayaa libaax, mid kasta wuxuu sheeganayaa qof dhammaystiran kaamil ah, waxba aanay ka maqnayn. aqliyada noocaas ah marka ay bulshada dhex gasho ee qofku iska aamino inuu perfect yahay, bini'aadamnimadii uu ka baxaya. markuu qofku iska aamino inuu wax walba khabiir ku yahay ama mawduucyo gaar ah oo khabiir looga dambeeyo ku yahay, haddii qof aqoonteeda leh oo intaas oo buug ka akhriyay oo intaas oo jir daraasay ahayn ee uu mawduuca kaliya halka afka la taago, ama aragtiyaha iska diyaarsan ee bulshada uu aaminad xaq jirnimo u qaado sida qabiilka iyo nasabka oo kale, qofkaasi fadradii saxda ah ee bini'aadamnimada in badan ayuu ka durugsan yahay. aqliyada saboolka ah ayuun bana saykoolojiyada raabka is dhamaystirka iyo isfaaninta ale. laakiin qofka caadiga dabeeciga ahi mar walba uu dhaadan yahay inay wax ka maqan yihiin, sidoo kalena isla qofka dabeeciga ahi inta waxa ka maqan aanu raadinin, horta waxa uu haysto ayuu ku qancay oo ku xasilaa. xataa mid kamid ah sababaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala irsaaqada uu qofka ugu waasiciyo in waxa uu haysto uu raali ku noqdo oo ku xasilo, kadibna wixii kale ka dhiman uu Ilaahay ka baryo yiraahdo Ilaahu ii siyaadi. laakiin qofku marka uu iimaan qaadan yahay ee mar walba waxa dhiman uu eegayo waxa uu haystanaanu ku qancaynin, ilaahayna aanu ugu mahadnaqaynin, Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunka uu aaminay isku haliyay faraha uga qaada sida uga dhacsanaya iyo sida uu la balanbalayo. war marba haddii aad nusqaan iska dareemayso wadadii saxsaneed ayaad haysaa, laakiin waa inaanay nusqaantaasi ku horseedin inaad ka yeekacdo wixii aad haysatay. midho guntiga ku jira kuwa geed saaran looma daadiyo, maamaha Soomaaliyeed ayaa ahayd. han iyo filasho iyo ujeedo aad doonayso inaad ka dhabayso oo weyn ha u horin waxyaabaha aad iminka haysato ee horta waxaad iminka haysatay ka faa'iideyso. isuna diyaari hanka weyn sababihii uu ku iman lahaa inaad iminka u sii gogol xaadho. dareenkaas dhinaashiyuhu waa ka ay higsanayso murtida caalamiga ee tiraahda baahidu waa hooyada hal abuurka, alxaaja umul ikhtirac. baahida ayaa hal abuurka sababta. adam sharqaawi ayaa sheeka faradiisa nabdi waxa uu ku oranayaa raggu badanka qaneeco ma laha, kuma qanacsana waxay haystaan ee mar walba waxay raadiyaan inta ay hayaan in ka sii badan. waxa uu keenayaa markaa tusaale horumarka adduunka uu ku saleynayo oo uu leeyahay. tusaale ahaan ninku wuxuu ku qanci waayay inuu mar walba faras u saarnaado, alaabtiisa kalena uu dameer jiido, kadibna faraska laftarkiisa ayuu sameeyay gaari faras uu alaabtiisana saarto uu ku jiido, kadibna xawaarihii iyo orodkii faraska ayuu saluugay, markaasuu sameeyay gaariga iyo tareenka. sidoo kale waxa uu saluugay in badeecadiisa iyo isu socodkiisu uu bariga uun ku ekaado, markaasuu doomo looxaan sameeyay oo uu badda isku biimeeyay. markii dambena gaarigii iyo tareenkii gaabiska ahaa uu ka dalacay oo diyaaradda xiimaysa iyo tareenkaas sida xabadda u dhacay ayuu sameeyay. waxaasoo horumar ahna adduunka waxa uu horseeday qaneeco la'aanta ninka ee uu mar walba raadinayo inta uu haysto inta ka badan. maantana adduunku waa ka ku liibaanay.
fikradda noocaasi waa sax marka dhanka laga eegayo bulsheed, laakiin dhanka shakhsiyadaada gaarka marka laga eegayo hagardaamo iyo burbur ayay kugu tahay in waxaad haysato aad ku qanci weydo oo aad wax kaa maqan uun raadiso mar walba inta kaa dhiman aad eegto. $9 markaad hesho $1 kaa maqan uu kuu muuqdo, $9 markaad heshana 10 kaa maqan uu kuu muuqdo, $900,000 markaad heshana 100,000 kaa maqan ayaa kuu muuqanaya. 900,000 weligood ku dhadhami maayaan. 100kaasi xataa haddii ku yimaado ay 1 milyan noqoto lacagtaad heshayna, milyankaasi kuguma filla. milyaneerna noqotaa kuguma filla ee maaltay milyaneerna noqotaa wad raadinaysaa. waa sirta baraaraha iyo farxadda ee muujinaysa lacagtu inaanay sideeda farxadda u keenin ee fikradda iyo aragtida lacagta ka haysata ay farxadda keenayso. laga yaabo adigoo $1 milyan haysta mid $1,000 haysta inuu kaa farxadiyo baraari badan yahay maadaama uu kaa qanaca badan yahay. sidoo kale dhinaanshiyaha qaybo ka mid ah oo aad iska dareento in aad intaad iska dareento weliba horumar iyo horusocod inaad ka samayso aad tijaabisaa ma horan ayay ku tahay. sida cilmiga oo kale, qofka cilmiga sida dhabta u dhadhamiya marnaba kifaayo iyo isku filaanshiyo dhanka cilmiga kama dareemo. mar walba wuxuu dareemaa inuu cilmi intan ka badan usii baahan yahay, inuu cilmi saayida doonayo, inuu arrimo badan xogo inuu ka helo doonayo, mawduucyo badan inuu ka salgaadho inuu doonayo. sidaa aawadeed dadka ugu badan ee wax akhrista waa brofesorada jaamacadaha dhiga. war mar kasta oo aad dareento in ay wax kaa maqan yihiin waad raadinaysaa oo horusocod ayaad samaynaysaa, laakiin waa markaad horta ku qanacdo wixii aad hore u haysatay, markaad xaasiliso, markaad sal u dhigto. xataa waxaa jira barnaamijkan maalmo dhexdaasa diyaarinay, laakiin halkan si yaroo koban tusaale ahaan aan ugu soo qaadanayo. nin mawduucan sharaxaya ayaa odhanaya baraha bulshada dadku maxay waxyaabaha liitamaala yacnigaa u daawadaan ay sababtu tahay qofna waxaa ku mudan waxa ka maqan oo markasta uu arko xog ka maqan ama macluumaad ka maqan cid bixinaysa ciddaasi wacan buu uga dhagaystaa oo garaadkiisuu kobciyaa. qofna maadaama uu wax weyn oo isku qanciyo inuu hayaa aanay jirin ma doonayo inuu dareemo inferior complex iyo inuu dadka si uga yaro hooseeyo. sidaa aawadeed xog uu u arko inuu ka caqli badan yahay buu daawadaa oo ku xidhmaa si marka uu xogtaan naqdiyayo ay caqliyadiisu si wacan ugu wada fahanto. laakiin haddii uu cilmi iyo falsafad iyo aragtiyo waaweyn dhex galo waxuu dareemaya inay wax badan ka maqan yihiin oo ku wareerayo. sidaas aawadeed ban macluumaadka waxtar kale badanka loo daawan ama loo dhageysan ee waxyaabahan taata loogu badan yahay. waa farqiga u dhexeeya qof cilmiga ka dhiman raadinaya iyo qof doonaya in uu mar walba isu arko inaan laga cilmi badnayn ama aan la dareensin jaahilnimadiisa. dhanka kale, haddii aad inuu dhammaystirnaan dareento isla daqiiqada aad fikraddaas qaadato ayaad dilaysaa hankaagii, horusocodkaagii iyo waxqabadkaagiiba. geeridaaduna bartaas ayay ka bilaabmaysaa, bartaasaad hankaaga ku dilaysaa. sidaa ogeed waa in hadafka kuwa cad ee aad doonayso inaad ka dhabayso uu hadafkaaga dambeeya. haddii kale mararka aad gaadho hadafkaas wada hanjabaysaa, haddii aad gaadho weydana waad niyad jabaysaa, labada jeerbana kuu daran. ugu dambayntii, haddii aad aaminsan tahay in wax badan ay kaa maqan yihiin, bushaaro waxa aad xaqiiqsan tahay inaad tahay aadami bashar ah. laakiin intaadan waxaa badana kaa maqan isku qaadin, intaadan waxaa badana kaa maqan raadsan, horta waxaad hayso xasili. haddii aad tahay masalan qof wax akhrista, dadka wax akhrista mushkiladan si gaara bay ula nool yihiin. adigoo ay guriga ku yeelaan 10 buug oo hore oo aad soo iibsatay oo aadan akhriyeen, buugga cusub ee soo baxa ama aad ka hesho ama macluumaad aad ku tuhmayso, ha isku qaadin inaad soo iibsato ee horta isku day inaad xaasiliso 10 kan hore macluumaadka ku jira. 10 kan lacagtu kaa gashay ee guriga ku yaala markaad ka dhamaato raadsi buugga kale aad doonaysid. waa qaabka ugu wanaagsan akhriskaaguna uu kugu toosayo meel dhalkan uu kugu yeelanayo. haddii laakiin 10 kii hore uu ku yaala 5 buug oo kale cusub oo aad danaynayso soo baxay ku darsatidna 15 kaas oo ku yaala hadhowna 4 kale soo baxayaan oo aad kuwana dusha kaga sii daraysaa. psychologiyada dareemista dhinaanshiyahu marka waa in horta waxa aad hayso aad xaasiliso, wixii kaa maqanna si ku habboon aad u raadiso. waxyaabo badan oo kaa maqan maqnaanshiyahooda aan muhiimad gaar ku lahayn way jiraan ee aadan isku daalinin. sidoo kalena marnaba aadan caqliyada dhammaystirnaanta yeelan. caqliyada aad u arto waxa inaad khabiir ku tahay oo aan adiga lagaaga daba dhufanayn aadan dareemin. brofesorada jaamacadaha inoo dhigaaba waa kuwa dadka ugu akhriska badane. wasalaamu calaykum.